kulan si weyn loo sugayay ayaa caawa ka qabsoomay howlka dowladda hoose ee magaalada Bielefeld kaasi oo gogosheeda fidiyay duqa magaalada Bielefeld Piet Clausen. dadka goobta lagu marti qaaday ayaa kala ahaa ururada siyaasadda, jaaliyadaha, ganacsatada iyo dadka magaca ku leh magaalada Bielefeld. jaaliyadaha goobta lagu casuumay waxaa ka mid ah jaaliyada Soomaalida Bielefeld oo xiriir dhow la leh dowladda hoose, ururada siyaasadda iyo jaaliyadaha kale ee magaalada ka jira. isbariidin iyo xog kala qaadasho kadib waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay duqa magaalada Bielefeld Piet Clausen isagoo ka hadlay arrimo dhowr oo u baahan la fagur. waxa uu duqu dul istaagay arrintii muran ka dhalisay ee dhawaanahan ka taagneyd Jarmalka, taasi oo ahayd in wixii ka yar 14 sano laga joojiyo xijaabka oo aanay ku imaan goobaha waxbarashada. waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay wax laga xumaado aadna ay uga soo horjeedaan haddii Jarmalka intiisa kale laga ansixiyana ay noqonayso arrin ay si weyn u diidan yihiin. Also Menschen, die sich nicht nur über ihre Nationalität identifizieren, sondern das Große sehen und die Identitätsbildung vor allem über die Stadt selber herleiten. Und auch wenn nicht alles perfekt ist in Bielefeld, dann sind wir da vielleicht auch doch auf einem ganz guten Weg. Und einem echten Weltbürger möchte ich jetzt das Wort geben, nämlich dem Vorsitzenden des Bielefelder Integrationsrates, lieber Mehmet Ali Ölmes. Schön, dass du da bist. Sag uns bitte deine Gedanken. Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Bielefeld oo madasha lagu casuumay ayaa lagu soo dhaweeyay hadalka iyadoo dadkii goobta joogay ay si diiran u soo dhaweeyeen. waxaana ay sheegeen inay farxad u tahay maantay inay dhageystaan khudbadda shakhsi Soomaali ah oo kaalin firfircoon wadanka ku yeeshay, taasoo ay ku tilmaameen in Soomaalidu ay tahay dad talada magaalada lala wadaago. gudoomiyaha ayaa kala hadlay duqa magaalada Piet Clausen iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka Jarmalka qodobo inta badan u baahan in madaxda dowladda iyo kuwa magaalada la horgeeyo, kuwaas oo Soomaalidu ay ku taamaysay in maalin uun cabashadooda dowladda loo gudbiyo, taasi oo gudoomiye Cabdiraxmaan caawa u bandhigay madaxdii dowladda ee goobtaasi ku sugnayd. qodobada uu gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Bielefeld Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan uu kala hadlay madaxda dowladda wax ka qabashadeeda waxaa ka mid ah sidii Soomaalida qaxootiga ay sharciga dalku jooga Jarmalka ku heli lahaayeen, in Soomaalidii hore u haysatay sharciyada yar loo fududeeyo sidii ay ku heli lahaayeen sharciga dhalashada wadanka Jarmalka, sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee kubadda ciyaarta loogu heli lahaa koox dhisan oo tababar siiya iyo sidii ay xirfado kale dhalinyaradaasi u heli lahaayeen. gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Bielefeld Cabdiraxmaan Cusmaan Axmed ayaanu weydiinay bal inuu sharaxaad naga siiyo jawaabihii uu kala kulmay su'aalihii uu weydiiyay duqa magaalada Bielefeld Piet Clausen iyo xisbiyada siyaasadda ee wadankan Jarmalka. caawi taariikhdu tahay 12 bisha Afraad 2018 waxaan la kulmay Oberburgermeisterka magaalada Bielefeld Herr Piet Clausen waxaan kala hadalnay 3 qodob. kulankaas oo ay goobjoog ka ahaayeen xisbiyada siyaasadda ee dalka Jarmalka. warbixintiisa markuu dhameeyay Oberburgermeisterka Herr Piet Clausen waxaan u gudbiyay warqad qoraal ah oo aan ugu talagalnay baahiyaadka Soomaalida Bielefeld agaarkeeda, anigoo ah gudoomiyaha jaaliyada Bielefeld Soomaalische Integraation Bielefeld. 3 qodob ayaan u gudbinay. qodobadu waxay kala ahaayeen 3 qodob. waxaa ugu horeeyay qodob koowaad oo ahaa dadka Soomaaliyeed degan Bielefeld iyo agaarkeeda ee aan haysan dalku jooga ama sharciga Jarmalka ama aan la qaabilin in burgmasterku uu ka caawiyo dadka Soomaaliyeed ee dalkooda muddo burbursan yahay. qodobka ugu horeeyay kaabuu ahaa si sharci loo siin lahaa dadka qaxoontiga Soomaaliyeed. qodobka labaad wuxuu ahaa waxqabadka dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu yihiin kuwa soo koraya, in laga caawiyo waxbarasho tayo leh oo isbeddelada muhiimka ah sida sportiska, orodka, dhalinyarada in la kobciyo waxbarashadooda iyo sportkoodaba. qodobka labaadna kaas buu ahaa. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa
waxaa soo baxay amahan dambe inaan citizenka ama sharciga baasboorka weyne jarmalka in soomaalida lagu xojeeyey intii muddaaba iminka ay jirtay marka in iyadana loo fududeeyo qofkii markuu sharciyada buuxiyo inuu helo citizenka baasboorka jarmalka. saddexda qodob baa u muhiimsanaa wixii aan u gudbinay maadaama markaad mas-uul tahay dadkaaga baahiyaadkooda ama dhibaatada haysata waa inaad ka warhayso, taasaana nafaraysa maadaama aan ognahay baahiyaadka ugu muhiimsan oo ah sharciga. qodobkaas aada ayaan culeyska u saarnay. qodobka labaadna in dhalinyarada ay helaan waxbarasho iyo waxay ku mashquulaan, iyo qodobkaad sheegtay oo ah wada shaqeyn. horena waan xiriir baan u lahayn, haddana in aynu sii xoojino sida iminka aan kuu sheegay oo wada shaqeyntoodu aan xiriir yeelano maadaama aragtidii markii hore ay burger mustaqbal ay yareyd oo kulankan kii ka horreeya u ahaa dhowr sano ka hor aan la kulanay. marka waxay kamid ahayd xiriiradii aan hore ula sameyn jirnay. waxaa la diwaan geliyey inta qofee ka hadlaysa waqti yaroo kooban la siiyey, waxaana kamid ahaa dadkii lagu marti qaaday inay ereyga ka jeediyaan. ereyadaydana waxaa kamid ahaa inaan ahaa qof magaalada dib u dejin ee u sameysay burger masterka macaawan la kulmay isagoo haysta uu kamid ahaa dadkii aan kamid ahaa dadkii uu magaalada soo dejiyey. saas darteedna wax ku bartay luuqadda, ka shaqeeyo, ganacsina ka sameeyey. dadka ila midkaana intaas iyo in ka badan ay sameeyeen. taas waa shaksiyan aniga. ta labaadna waa dadka soomaalida inay yihiin dad muddo kara oo si dhow wax ku qabsan kara, hadday waxbarasho noqoto iyo hadday ganacsi noqoto iyo hadday orod ama sports noqotoba. jaaliyada soomaalida ee magaalada Bielefeld ayaa jaaliyad inta badan xiriiro dhow la leh dadka magaca ku leh magaalada, xisbiyada siyaasadda iyo waliba dowladda, waxaana ay isku dayaan guddiga jaaliyadu inay xaliyaan tabashooyinka u dhaxeeya Soomaalida iyo dowladda Jarmalka, iyadoo sidoo kalena ay dowladdu wax ka weydiiso qodobada Soomaalida khuseeya oo ay u baahan tahay inay si gaar ah ugu gudbiso. sanadii 2011 ayaa dhidibada loo taagay jaaliyada Soomaalida Bielefeld oo aan jaaliyad ku joogta nidaam sharciyeysan.